qaar ka mid ah ganacsatada yaryar oo maanta aan ku booqday goobaha ay meheradaha kaga haystaan degmada Berbera ayaa ka waramay saameynta uu ku yeeshay sicir bararka haatan hareeyay guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana sheegay inay ku fashilantay xukuumadda haatan talada haysa sidii ay uga jabin lahayd danyarta ay abaartu hayso maciishada qowtul daruuriga ah dhawaan ayay markii uu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo soo saaray go'aan uu ku xadidayo sarifka lacagta dollarka ah walaal ay ku gacan saareen shirkadaha ay ka mid tahay Dahabshiil Telesom iyo shirkadaha qaadka oo ku sarifaya $100 850 ilaa 880 waxaana la oran karaa waa amuurta dhalisay in ay mar wada dhawaaqdo bulshada ku dhaqan dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ay qeylaan u dirto madaxweynaha haatan talada haya Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo si uu amuurtaasi sidoo wax uga qaban lahaa ganacsatada iyo cid kasta oo ka hor timaada awaamirta dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda lafteeda ku aan kolba waxa kulinta kortima dabay hadii si deelisa saxibada marada waxba ka qabeelin dawladdu inay faraha kala baxdo ayaa habboon bawleen waayo mise charben dawladdu inta kortima dana beenays madaxweynaha waxa uu leeyahay hadii aad saxibada waxba ka qaban kareynin oo maamuli kareynin madaxweynaha iska sii daaban leeyahay dadkii muddaashay saana waxaad ka wareysanaysaa Soomaha saxibada saxibada waxa weeyaan hadii aan dhulka wax lagala soo bixin qolii yaraaye ma garanaysaa in wax naga qaboojin jireen oo kuwa in xaaladooda ognahay marka waxa weeyaan been dhulka ku dhaqaaqno dhulka beeran miisaaniyadan bila macna lagu hadeelaha ka dhigayo lagu baabiinayo weyn beeraha la geliya oo boqolkiiba 50 beeraha la geliya si dadku xula soo baxo sallallahu alayhi wasallam sixir baraka wuxuu horeysa waxa ku dowladda ku ya dowladdu Allah waxa ka qabanaysaa sarifkii kaashkii ay lahayd waxa xukuum baa u sarifaya oo gaarkeeno tasdiiqii Somaliland waxay noqotay dhigmeed axmaq bay noqotay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum magacaygu waa Cabdisaaqis Jaamac waxaan ka mid ahay ganacsatada dabaqada hoose ee Somaliland gaar ahaan iminka Berbera haddii aan ka hadlo su'aasha aad weydiisay sixir bararka waxa sabab u ah dawladda sababtoo ah dawladdu waxay مثلا صالحان لو سoo qaado maaliyada wasaaradii hore markuu ay sitay Maxamed Xaashim runtii si fiican ayuu soo dhisay maaliyada qabca wanaagsan oo soo gaarsiiyay waxaana looga yimid bangigeeda lacagtu aad u taalo waxa jirtay mar ay kamid ahayd in uu ka hadlay sixir bararka ama dollarka kicitaankiisa oo sababta koobaad keena sixir bararka inuu ka dhigay dollarka 500 oo Somaliland dastuurka Soomaaliland sidoo dhigayo kow 350 inaan dhaafin $100 laakiin maanta waxa maraya 900 waa 3 jeer laba laab waxaana sabab u ah cid markaa gacanta ku haysa waxaana lagaga kaaftoomi karaa oo laga maarmi karaa sicir bararka koobaad halkay dawladdu Soomaaliland ama maaliyadu ay ka siisay shirkadaha waaweyn sida Dahabshiil iyo Albarakaad sarifka lacagaha ay maamulayaan iyagu waxa ka habboonay in bangiga dhexe la keeno oo maadaama anagu aan dollarkii doonayno كان يمسلنا إياه كيبسلنا هاي اللي جايبين يعني إمك بدولة واحد تلمانتي دويتو تضارب بقولك الدولار ما دافع كرا قعدت تنبولي بقى قعدت الحنا لح بقول يستديته محاسبة بين السجال بقول ترجعله وحكى أود بدتي دولتي قاعدة واوي صبتها الدولار كلف دي سبنك يجا يكيبيا يجونا نجي نجيبيا عبد الرشيد Somali Cable TV مقالة بربراء